Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkii Dareen Ugu oo aan maanta kusoo qaadanayo maanse aan ugu magac daray siyaasiga hurdee Soomaaliga ah. Maansadan waxay hoga tusaaleyn u tahay ragga iyo dumarka ku jiraba siyaasadda Soomaaliya, ayadoo uga digaysa inaysan siyaasaddu ahayn wax ku qotoma daruufaha maalinta taagan ama manfac laga doono, ee ay tahay wax la xiriira ficilada maanta la qaadayo mustaqbalka dambe iyo aayaha ummad ama dal iyo dadba. Haddaba si aysan u noqon ficilada ka imaanaya ninka siyaasiga kuwa haga maalintaas waxa jira isagoona ka fakerin mustaqbalka dad iyo dalba, ayna dhici karto inayba horseedo xaalka maanta dalku ku jiro amase berriba uu ku jiro ama saa dambaba meel ka xun inuu la sii gasho, ayadoo waxa la fiirinaya ama la daba joogana ay tahay qadiyado raqiis ama manfac ama mansab aan maalinta dhaafayn. Haddaba maansadan waxaan ugu talagalay inay gaadho dhagaha mid walba oo siyaasi oo sheeganaya siyaasadda Soomaaliya qaybtuu doona ka qaato. Waxaynu ku bilaabanaysaa sidan: tixdan aan sidaa run bay saafan tahay, beentay sayrisaa, siyaasiga hurdee Soomaaligay samahiisata. War siyaasiyow ha noqon suntii harag meel la suray lagu sayri jiray. War siyaasiyow saqiir iyo ha noqon sabaygaan hadlinoo socodkaba aqoon. War siyaasiyow sixirlow ha noqon xumaan soo hayo shaydaan uusan caday. War siyaasiyow ha noqon subaac waraabaha si loon dunyadii salfaday. War siyaasiyow ha noqon sawaab sadarrada dhexdood sawir aan ka arag. War siyaasiyow surunnada ha qodin, siriq walaal ha dhigin yaysan kula sidbane. War siyaasiyow hadday soori tahay sababtaa ku wada seeftaa kaaga roob. War siyaasiyow sooyaalka baro, salfudaydka daa, adduun iyo ku sirin. War siyaasiyow sokeeyaha isnacay ha isa seejine isku soo sabaal. War siyaasiyow Soomaali weyn adoon sawd ka rabin samaheeda doon. War siyaasiyow qabiil soocanoo sacab kuu tumaa sumcad kaaga dheer. War siyaasiyow sumadeenna qaaran calankeenna suran saldhigiis ahow. War siyaasiyow sufihii tukaha sahansaday bakhtiga surunkiis ha marin. War siyaasiyow nabad baasan lahe colaad haw suqlayn haw tuma nasalow. War siyaasiyow bulshadu wow siraad beenta suubiskee afku kaasita. War siyaasiyow sadbursi iyo eex haybsooc qabiil salaan ha iga dhigan. War siyaasiyow riyo aansan lahayn salalkeeda daa naftaadana ha sirin. War siyaasiyow riyo aansan lahayn salalkeeda daa naftaadana ha sirin. Tixdaas siyaasiga hurda iyo sifaha ay tilmaamaysaba waxa ay cashar u yihiin in badan oo ku jidha siyaasadda Soomaaliya oo duruufo ama ha u keeneen amase waxyaabo kaloo ay
la gashay ha ku soo galeen siyaasadda, laakiin horseeday in aayihii ummad iyo dal iyo dadba madaxa hoose loo gasho. haddaba si looga gudbo taas waa in lagu baraarugsan yahay marka siyaasad laga hadlayo waxa runta ah ee ay xambaarsan tahay, culayska ay leedahay, iyo sida ummad loogu jihayn karo waddada ay u socoto ee guusha iyo horumarka ku dhisan. haddaba haddii annaga Soomaali ah aan rabno in ayahayagu ka qurux bato maanta meesha aan taagannahay, waa in aan ka fakernaa ruuxa siyaasadda sheeganaya ama ku jira ama soo galahaya, kaasoo aan u xulanayno mid dhabaha uuna marsiina doona ay noqon doonto dhabaha guusha iyo horumarka, mid anfac ama sixintan ama eex ama qabiil ay dabada ka riixayso, ama camalladan kaloo maanta adduunka marahaya oo aan wax lagu tilmaamo aan la aqoon, laakiin loogu talagalay ummadaha inaysan kicin ee saldhigka dhulka loo dhigo. ficilada noocaasa rag baa loo soo saaraa oo ka fuliya waddamada la rabo inaysan hore u tillaabsan. marka dadka noocaasoo siyaasadda ku jira waa in ummaddu ay barato, kana hortagto, ayna og tahay kan u horseedahaya guusha iyo kan u horseedahaya foolxumada. labadaas waa inay ummaddu kala barato ee siyaasadda ku wada jira. maanta barnaamijka dareen ugu qodobkaasaan ku xusi doonaa. waxaana jecelahay inaan albaab walba oo ragga sheeganaya siyaasadda Soomaaliya ay maasadani u gasho, dhagahana loogu shubo. waadna mahadsantihiin dhammaan bulshadayda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan.